Manchester Unitedna waxay aad qarka u saareen la wareegada ciyaartoyga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho lacaga 77 milyan oo dalab ahaa ugu dambeyntii Borussia Dortmund waa qiimihii iyagu ay rabeen Manchester waa ay aqbashay haddaba waxa Sky Sport ay soo warinayaan maanta in heshiiska Manchester ay qarka u saaran tahay inta waxa ka sii dheer wargeysada kale ugu afka dheer Ingiriiska sida Mail Online wuxuu soo warinayaa in heshiiska labada kooxood lagu wado in ay gaaraan oo ay qarka u saaran yihiin heshiiskan lagu dhameeyo lacag dhan 77 milyan walibana waxa la filayaa heshiiska in la confirm gareeyo oo la xaqiijiyo horaanta isbuucan ku gudi jirno ayaa laga ogeynaya Jadon Sancho waa sababtan ku dhaay xalay madaxan ka dareemaya Manchester inkastoo Madrid marka qaar noqon karayaan maradii igridi karaan oo bariyahan noqdeen reer aan rabnaa iska noqdeen hebelowaan rabnaa ee kan belowaan rabnaa iyagu ku hay suuq iska xirmayo laakiin waxaan ri Sancho madaxan ka dareemaya sanadkan waa Reed Vilizoya والله مانشستر حاجه يا بدم ماري وهلي دونا سانشو بلاس كافاني بلاس بوجبا بلاس بحرده برونو بلاس راش يا والله نيك سانشو والمانشستر برين aad way ismataqaanin sida gigiis oo kale ma hayaan bariyaan oo garabka saa isa u soo walaaqo wala jadon caadi ma haduu jadon kaco waa Manchester marlo ma heli doona marka waxa uu leeyahay horaanta isbuucan ayaa la gabagabeynayaa heshiiska Jadon Sancho marka isbuucan ayaa lagu dhawaaqay heshiiskan yahay marka laba wargeys oo weyn ayaa midna wuxuu xaqiijiyay in Manchester aad ugu dhowdahay Sky hal kuwan ay leeyihiin horaanta isbuucan ay heshiiska la xaqiijin doona sida la filayo marka Manchester dadkii Sancho ku hay wareey Sancho idin maamnayay gacalka iska boobina halka sidoo kale warka ay leeyihiin Kieran Tierney oo Arsenal u ciyaaray 5 sano iyo Arsenal u siixay runtii ninkan in la fasaxi kara ma yaaqay kooxo badan Yurub ay indhaha ku hayay marka Arsenal waxay yiraahdeen warkan intaan la qaadan ba Manchester ka siixanayna marka Tierney 5 sano u siixay lagu leeyahay kooxda Arsenal halka sidoo kale Harry Kane oo sanadkan ku dhibaataysan dhalinta goolasha Euro-ga isaga still Mbappe wali wax gool uma dhalin xululkooda Euro-ga hadda waxa loo gudbay wareegii 16ka oo aad loo ugu baahan Ingiriiska inuu Kane goolasha ku soo laabto Kane oo gool dhalinta ku guuleystay Golden Boot World Cup-kii hore ayaa waxa uu ku cawday inuu sanadkan aanu haysan banigiis uga fiicnaa wuxuu leeyahay war waan ahaan karaya 10 ciyaarood gool aan waa noqon kara iyo 15 ciyaarood oo gool aan waa noqon kara laakiin idinka isiya fursad buu leeyahay aniga ayaa nafteeda ku soo celin dhalinta goolasha marka wuxuu leeyahay Kane war la cimaamado war idinka ay waalina يا وحلا يهي إيد الخات ولا يهي ويران قفك بني آدم كا طبعا إلى شيء طبعا هرتا قلان ونقكر يا بس يقولك ودمي وإيمانه يا ولا بل تقنا كل سنة دي نسي ولا يكينوا عطسنا يا ميدا كلا يدو عيار وين صات كانوا عيار يا صدقت والكار إيمانه ودنا كجرماني أي صدقت وحا ولي للشيء يا إن شيء سبلا قصي دونا أو تحولك إنجليز كأدمي وجود بقين نكان صدق كذا